asxaabta soo dhawaada saaxiibkii Marwele masal waaye minka minikiini waaye maanta video wuxuu ku saabsan yahay sababta muqaha gacnaha oo ku yaal ay weynaan waayeen ama sababta ay u dhismi waayeen videoga laba qaybood oo ka kooban yahay qaybta hore waxay taano gymka joogo oo idin tusinayo sida aniga gacnaha u training gareey qaybta labaadna gym kadib waxaan sharaxaa khaladaadka dadka ay suubiyaan marka fiirso video ila dhamaadkiisana wax ka faa'iido ayaa laga yaabaa asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan noo balana gymka asxaabta saajidan waxaan joogaa gymka warm up ayaan soo suubiyey warm upka kadib waxaan ka bilaabay exercisekan school crusher waxaan ka suubiyey 4 setkiiba waxaan suubiyey 10 jeer sadarkeysaan waxaan ku suubinayaa miisaan aanan si sahlan uga suubin karin 10 jeer isla markaana mar walba waxaan isku dayaa miisaanka inaan kontrolo intii tabarteyda ah marka exercisekan suubinaysid khasab maaha inaad ku suubisid birta dheer haddaad rabto birta gaban oo ku suubin kartaa markii aan 4 set suubiyey kadib waxaan ku daray set sanaad miisaankan waan kordhiyey waxaan rabay inaan fiiriyo inta aan qaadi karo markaas kadib waxaan ka suubiyey 5 jeer oo kaliya markii aan exercisekas dhameeyey kadib waxaan ku xijiyey exercisekan barbell curl waxaan ka suubiyey 4 setkiiba waxaan suubiyey 10 jeer sadarkeysaan waxaan ku suubinayaa miisaan aan si sahlan uga suubin karin 10 jeer isla markaana mar walba waxaan isku dayayaa miisaanka inaan kontrolo mar walba miisaanka kor usoo qaadayo markaan hoos u dhigayo waxaan isku dayaa xusulladeeda meesha inay joogaan si shaqada ay u qabtaan bicepska aniga exerciseka markaan suubinayo waxaan ku suubiyaa olympic bar markaas ayaan dareemaa bicepskayga shaqo inay qabanayaan markii aan exercisekas dhameeyey kadib waxaan ku xijiyey exercisekan dumbbell hammer curl waxaan ka suubiyey 4 setkiiba ama gacantii waxay suubisay 10 jeer sadarkeysaan weli waxaan ku suubinayaa miisaan aan kontroli karo isla markaana si sahlan uga suubin karin gacantiiba 10 jeer sadarkeysaan weli xusulladeeda ma dhaqaaqayaan ama waxaan isku dayaa xusulladeeda meeshooda inay joogaan si shaqada u qabto bicepska exercisekas dhameeyey kadib waxaan ku xijiyey tricep push down waxaan ka suubiyey 4 setkii waxaan suubiyey 15 jeer sabli arkaysaan waxaan ku suubinayaa miisaan aan kontroli karo isla markaana si sahlan uga suubin karin 15 jeer markaad muruq dhisaysid ama training gareynaysid waa muhiim inaad ku training gareysid miisaan aad kontroli karto haddii aad miisaanka kontroli karin macnaheedu waxay tahay muruqa markaas loogu talagalay shaqada ma qabanayaan marka ogaada maxay sheeg mar walba isku day miisaanka inaad kontrolshid si shaqada u qabtaan murqaha loogu talagalay bes markii exercisekas dhameeyey kadib waxaan ku xijiyey reverse grip curl waxaan ka suubiyey 4 jeer setkii waxaan suubiyey 15 jeer sadarkeysaan weli waxaan ku suubinayaa miisaan aan kontroli karo isla markaana si sahlan uga suubin karin 15 jeer exercisekan bicepska bes shaqada ma qabanayaan waxaa kaloo shaqada qabanaya xitaa forearmska markaa exercisekan suubinaysid uma baahnid inaad ku suubisid miisaan weyn waxaad u baahan tahay inaad ku suubisid miisaan aad kontroli karto si shaqada ay u qabtaan meelaha loogu talagalay bes markaan exercisekas dhameeyey kadib waxaan ku xijiyey row push down waxaan ka suubiyey 4 setkii waxaan suubiyey 15 jeer sawli arkaysaan waxaan ku suubinayaa miisaan aan kontroli karo si shaqada ay qabtaan murqaha loogu talagalay bes mar walba oo gacanta hoos u soo celinaya waxaan isku dayaa gacanta inaan wala fidiyo si tricepska shaqada ay u qabtaan gabagabadii waxaan kusoo gabagabeeyey exercisekan incline dumbbell curl waxaan ka suubiyey 4 set gacantii waxay suubisay 15 jeer sadarkeysaan waxaan ku suubinayaa miisaan aan kontroli karo isla markaana si sahlan uga suubin karin 15 jeer exerciseka markaad suubinaysid waxaa muhiim ah inaad ku suubisid miisaan aad kontroli karto haddii kale shaqada bicepska ma qabanayaan asxaabtaas ujeedaan waxaan joogaa xaafadda gymka waa ka imaaday balanta waxay ahayd inaan sharaxo khaladaadka dadka ay suubiyaan khaladaadkaas oo keena gacnaha inay u weynaan waayaan ama murqaha gacnaha inay kori waayaan khaladka koowaad wuxuu yahay qofka aanan cunin raashin ku filan haddii aad rabtid murqaaga inuu weynaado waa inaad tahay caloric surplus energy ku soo galo kan kaa baxo waa inuu badan yahay kan ku soo galo kan kaa baxan uu yaryahay muruqa markaas kadib u weynaanaa
ugu markaa tahay caloric surplus jirkaaga baruur yaraa soo koraysa ka cabsanin hadhow markii maxay sheeg muruq intaa rabtay markuu leekaado ayaa katin suubinaysaa si aqli ku jirana katin u suubinaysaa baruurta tartiib ayaa jirka uga saaraysaa marka ogow gymka muruq mana lagu weyneeyo mana lagu yareeyo muruq waxaa lagu weyneeyaa raashinka waxaana lagu yareeyaa raashinka dadka labaad ee dadka soobiyaan wuxuu yahay qofka ku training gareeya miisaan aad qafiif u ah mataqaana qofkii maxay sheeg mar walba uu training gareynaa gacnaha wuxuu ku training gareynaa miisaan qafiif mataqaana 2 kilo soo qabsanaa mataqaana wuxuu u maleynaa gacnihiisa inay weynaanayaan haddii aad rabtid gacnaha inay weynaadaan waxaa ku training gareysaa miisaan sax ah isla markaana 10 jeer si sahlan aadan uga suubin karin adoo u suubinaya technique sax ah si muruq loogu talagalay markaa shaqada uu qabto midada kale waxaa kaloo muhiim ah inaad u training gareysid mataqaana trainingkaaga uu yahay progress overload macnaheedu wuxuu yahay mataqaana weekii ama bishii markino miisaankan inaad ku dartid rebiskan inaad kor u qaadid ugu haddii aad maxay sheeg maalin walba miisaan maxay si qafiif ku training gareysid mataqaana gacnahaaga weligaa ma weynaanayaan macnaheedu markaan ku dhahayo mataqaana miisaan weyn ku training gareey ma ahan miisaan maxay sheeg isku dhaawacaysid ama miisaan si khaldan u suubinaysid waxaan ka wadaa miisaan si sax ah u suubinaysid isla markaana 10 jeer aad ka suubinaysid adigoo si sax u suubinayo qaladka saddexaad wuxuu yahay nasasho la'aanta qofka maalin kasta gacnuhu training gareynaa gacnaha weligiis ma nasanayaan ugu haddaad gacnahaaga weligaa nasin ama markasta training gareysid gacnahaaga ma korayaan maxay sheeg tusaale ahaan maanta haddaa gacnaha training gareysi ma aragtay 2-3 maalin nasi si ay u reestaan macnaheedu maahan gymka ma aadaysid korka meelaha kala suubin kartaa midada kaleeto waxaa muhiim ah ma aragtay weekii 2 mar inaad gacnaha training gareysid sababta waxay tahay mataqaana protein synthesis mataqaana maalmo badan meesha ma joogayo maanta haddaa training gareysid protein synthesis markuu yimaado ma aragtay waqti ay qaadanaysaa intuu meesha joogo dhowr maalin ay qaadanaysaa laakiin week dhan meesha ma joogayo saas darteed ma fiicna weekii hal mar bes inaad gacnaha aad training gareysid waxaa fiican 2 jeer inaad training gareysid si uga faa'iidaysto protein synthesis markuu meesha uu joogo ama muruqa uu joogo midada kale waxaa kaloo maxay muhiim ah inaad ogtahay mataqaana tricepska iyo bicepska murqa yar waayo uma baahna maxay sheeg mataqaana midkiiba 10 exercise 3 exercise midkiiba ku filan asxaabta videoga aad u dheeraaday daawashada videogana daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin adiga walaashay walaalkii hadda channelka ku cusub tahay fadlan subscribe leh asxaabtaadan u share garay asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan noo balana videoga ku xigo mahadsanidin dhamaantiin